shirka dhalinyarada Soomaalida Somali Youth Summit ayaa mar labaad ka qabsoomi doona magaalada Jigjiga ee deegaanka Soomaalida. Sanadkan udub dhexaadka shirka iyo arinta lagu lafaguraya waxay daaran tahay xirfadaha iyo shaqada. Waa mowduuc aad u taabanaya caqabada ugu weyn ee ku horgudban dhalinyaradeena. Waxa shirku kulmin doona siyaasad sameeyayaasha dhalinyarada iyo institutionska ama dadyowga kala duwan ee si toos ah ama si dadban ula xiriira ama uga shaqeeya mowduucan shaqada iyo xirfadaha. Waa mowduuc xilligiisii jooga. waxaan rajaynayaa in kulanka uu ka soo baxo jiho cad oo la isla wada qaatay iyo wacyi hor leh oo ku saabsan mowduucan. marka la hadal qaado shaqada ama shaqo la'aanta iyo xirfaduhu sida u xiriiraan iyo sida isku saameeyaan, waa arrin qofba inta uu ka og yahay iyo inta uu ka arkay uu ka sheego. laakiin maadaama ay tahay mushkilad weyn oo maanta inagu horgudban dhalinyaradeena mushkiladda ugu weyn, maadaama ay tahay dhalinyaradeena mushkiladda ugu weyn ee maanta ku horgudban, waxaan filayaa inuu noqon doono kulan xiise gaar ah leh oo dhalinyaraduna ay ku furfuran doonaan, way aragnimadooda ku wadaagi doonaan. dadka khubarada ah ee kala duwan ee meesha imanayana ay wax ku kala baran doonaan. waxaan rajaynayaa inuu noqdo kulan uu ka soo baxo wacyi weyn, aragtiyo caafimaad qaba, ogaal iyo wacaal macno leh oo wax ka tara maareynta caqabadan weyn.